بسم الله maanta waxaan halkan kasii wadaynaa xalqadeena labaad intii nala socotay xalqadeena shalay waxaa ka hadlaynay mowduuc weyn oo ku saabsan sidee shaqo u abuurtaa sidee qof dhalinyaro ah oo fresh ah oo jaamacad ka soo qalin jabiyay shaqo yar oo noloshiisa ku filan sidoo uu hal abuuraa shalay mowduuca waxaa ka hadalnay qofka hal abuuraha ah sifooyinka laga rabo gaar ahaan hal abuuraha ka hadlayno waa hal abuuraha ganacsi tilmaamaha laga rabo waxaa ka hadalnay 10 tilmaan waxaa rajeynayaa inaa 5 kamid ah keentay oo aabaastay maanta waxaa ka hadlaynaa mowduuceena labaad wuxuu ku saabsan yahay ganacsiga sida ogtiin fikradu ku dhisay intaan ganacsi hal abuurin waxaa u baahanahay wixii ganacsiga ka hal abuuri lahaa iyada xitaa inaa hal abuuro marka mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay sidee loo helaa fikrada ganacsi fikradii sidee lagu helaa bal horta intaaba la gaarin ganacsi in la hal abuuro marka 4 area oo aad ka heli kartid fikradaha ganacsiga ayaan ka hadlaynaa oo mowduuceena uu ku saabsan yahay tan koowaad waxay tahay inaa raaheshid caqabad problemyada daily life-kaaga oo maalinlaha ah aad la kulantid inaa ka samaysid ganacsi sida ogna wadankan dhan dabcan waa caqabado badan haystaan waxyaabo badan oo adaga nolosheena ku jiraan marka waxyaabahaas sidee caqabadahaasna haysto sidee looga sameyn karaa ganacsi sidee loogu bedeli karaa oo caqabadaas lagu xallin karaa marka tusaale hadda waxaa jooga maanta meesha hadda idin kala hadlaayo waa xarunta Himilo waa shirkad sameysa software-rada caafimaadka gaar ahaan dabcan waa tan wadanka dhan ugu weyn oo cusbitaalada wadanka ugu weyn u sameysa systemka lagu manage gareeyo fikradeeda rabaa inaa idin sheegay ku dhalatay waxaan training ku sameynayay meel cusbitaal oo nurse training ku saabsan khamiis iyo jimcaha marka waxaa arkay dadkeena waa aragtay marka dhakhtarka daawo uu qoro baaritaan loo sameeyo waxaa la usbuuc kadib soo laabo marka waxay luminayaan warqadihii oo cusbitaalka marka dhakhtarka si uu ogaado wixii hore uu sheegay marka waa inuu feel dheer lagu laabto raadin badan la sameeyo warqadii maadaama ay lumiyeen marka takhaatiirtii iyo maamulka la hadlay marka waxaa ku dhacay nimay caqabadan cusbitaalka ka jirto oo ah dadka inay luminayaan waraaqadaha idinkana dhib badan kala kulmaysiin inay heshiin system ay u bedeli karaan wax fudud inaa qofka telefonkiisa intaa gelisiin isla marka ay heshiin wixii laga baaray waxyaabihii daawooyinka loo qoray wixii oo dhan si fudud ku heshiin midda kale waxaa dhahay processkan dheer maadaama aniga wax ka fahmay sidoo cusbitaalku u shaqeeyo meesha training ku sameynay waxaa dhahay caqabado badan meesha ka jira shaqadan oo dhan waa fududeyn karnaa hal system sameyn karnaa oo shaqada oo dhan from reception ilaa cusbitaalka ilaa dhakhtarka ilaa waxa dhan oo shaqadii loo fududeeyo dadka si smooth shaqada cusbitaalka u noqdo dhakhtarka maamulka ugu waafaqeen xadna wala fikrad fiican waaye meeshaas ay ahayd meesha aan ka helnay fikradda Himilo ee ka dhalatay kadib waa cusbitaalkaas u sameynay kadib waxaa ku xijinay cusbitaalka loo Hargeysa ku yaalo kadib cusbitaaladii wadanka ugu waaweyn oo dhan u sameeyay gadaashin hadda waxaa ka muuqatay in konton cusbitaal oo xarumo caafimaad ay isticmaalaan dabcan kuwa wadanka dhan ugu weyn 3,000 oo user oo takhaatiir nurses howlwadeena caafimaad oo kala duwan ay maalin kasta loo gareeyaan marka waa inaa saasoo kale challenges tiro badan oo kala ka jiro oo iyadana ganacsi laga sameyn karo marka tan koowaad hadda ku laabto qodobkeena koowaad waxay tahay raadi caqabad waliba caqabada meel fog ka raadin caqabadaha adiga noloshaada haysto oo ku jira oo maalin kasta aan la kulano fikrad ganacsi ka sameey tan labaad number 2 qodobkeena labaad wuxuu yahay hobbigaaga ganacsi ka sameey waxaa jira qof kastoo naga mid ah wax shalay ka soo hadalna wax uu ku fiican yahay ayaa jira waxyaabaha aad ku fiican tahay oo aad interest kareyso oo aad jeceshahay oo maalin kasto marka qof ka hadlaya aad aragtid attention siisid ama si fiican ula socotid qof kasta hobby uu leeyahay wax uu xiiseeyo oo Ilaahay uu sameeyay uu leeyahay marka waxaas xiiseeso ka dhaxraadi fikrad ganacsi inaad ka sameyn kartid ka soo qaad gabadha waxay jeceshahay guriga decoration-ka sida loo hagaajiyo sida loo qurxiyo sida waxyaabahaas lacag saa uga sameyn kartaa sports ka xiiseysa sidee ganacsi fikrad ganacsi meesha ugu dhalin kartaa marka
waxyaabaha aa xiisaysid oo aad jeceshahay ka fikir sida aad ganacsi ugu bedeli karto. kaas waa qodobka labaad oo meelaha laga helo fikradaha ganacsi. fikradda saddexaad waxay tahay ganacsi haddaba jiro waxaa isku daydaa si ka fudud sida hadda uu u jiro intaa ku dartid innovation aa ku dartid sida hadda uu u jiro si ka fiican u sameey oo ku qurxi. anaga hadda Somara kamid ah shirkadaha aan ka shaqeeyo asaasay. Somara waxay ka shaqeysaa alaab iibisa iyo internet iibisa sax. alaabahaas waa adeeg hore u jiray oo qadiimi ah in qofku uu dukaan tago wax iibiyo wax ka iibsado. marka anaga waxa sameeyay wixii fududeynay waxaan dhahnay dukaanka inaad tagtid maxaa uga baahan tahay application-ka Somara la soo deg waxaa ka arkaysaa kumanaan alaab sida iskafaalooyinkii oo kale u yaalaan meesha ka arki kartaa alaabta doonto dooro qiimihii waa ujeedaa lacagta meesha ku dhex bixin kartaa kadibna isla markii gurigaaga kuu keenayna qiimihiina waxaa laga yaabaa inuu ka jaban yahay suuq. marka maana sameynin wax cusub retail ganacsiga caadiga ahaa oo alaabaha la kala iibsanayay kaliya waxaa ku darnay ayaa fududeynay. saasoo kale boqolaal ganacsiya waddankeena ka jiro oo aad u sameyn kartid sida hadda ay yihiin si ka qurux badan oo ka hagaagsan oo ka nidaamsan oo interesting xiiso leh aa u sameyn kartid. marka taasna waa fikradda saddexaad meelaha saddexaad. fikradda afraad waxay tahay inaad sameysid market research yar oo weliba aad ka bilaawdid qoyskaaga iyo saaxiibada aad weydiisid maxaa fursado ka jiraan maxaa jeclaan lahayd adiga hebel saaxiibada kuwa ganacsiyada ku jiro kuwa kale qoyskaaga xitaa inaad la sheekaysatid waxaa kaaga soo baxaya wax dadka ay niyadda ku hayaan oo aan leeyahay fikrad ganacsi ayaa ka sameyn kartiin. aada umahadsantihiin. marka intaas qodob afartaas qodob kusoo koobaynaa maanta sidee loo helaa fikradda ganacsiga sidee loo helaa. aada umahadsantihiin. xalqadeena maanta intaasay ku kooban tahay. insha allah waxaa si joogto ah u wadi doonaa idinkana nala wadaaga waxa aad ka fahamteen iyo mowduucyada aa xiiseen. hadafkeena ugu weyn wuxuu yahay in qof kasta oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka baxay ama hadda dhigto uu samaysto ganacsi yar uu kala bixi karo nolol maalmeedkiisa uu ka soo saari karo. waana hubaa ganacsiyada yaryar oo qof noloshiisa ku filan maanta inaysan u baahnayn lacag maalgelin ay u baahnaan kaliya oo u baahan tahay xirfad creativity isku kalsoonaan iyo waxyaabihii shalay aa ka soo hadleen. aada umahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.